حكومتنا inay ka qabato arrimaha amniga talaabooyin cad waad aragtaan maalin walba in la istaajinayo baabuur dad Soomaaliyeed isku qarxin rabo waxa laga sii qaadi doonaa talaabooyin cad waad aragteen cashuurtii dalka laga qaadayay inay korortay oo ay ku korortay qasnada dawladda si mushaarka loogu bixiyo waad aragteen adduunyada qaabkay nolol dhaqmi jireen inay soo ifbaxayaan talaabooyin ah inay wax iska bedeli rabaan waad aragteen dunidu inay diyaar u tahay inay ku shaqayso talada ummadda Soomaaliyeed waad ogtihiin xukuumaddeeda in ay halka dhug tahay in la isla xisaabtamo haddii aan rabno inaan ka baxno dhibaatada waa inaan ka leexanaa dariiqyada dhibaatada nageey sidaas daraadeed waxaan ka codsanayaa laba arrin koow sida ugu wanaagsan oo aad ku heli kartiin haddii aad tihiin reer Banaadir xuquuqda aad tabanaysaan waxay tahay idinkoo isku duuban inaad garab istaagtaan maamulka gobolka Banaadir farinta aad qabtaan inaad anaga noo soo gudbisaan idinkoo soo maraya isaga anna waxaan idin ballan qaadayaa aniga iyo madaxweynaha iyo xukuumadduba inay la shaqayn doonto garab istaagi doonto gudoomiyaha gobolka Banaadir ana soo magaalada tan labaad aan rabo inaan ka codsado waxa ay tahay waa inaad ogaataan bulshada meeshaad uga jirtaan waxaad tihiin dadkii reer Muqdisho حتين ضياشي كقبيلة مدحدي سياسيين تي دمر كي دلنيردي من قبل كبنادر وحتين أستانتي ومدة صومالية في سنة وحتين طريق ومدة صومالية وانا جاي كمر لهاين واحدين طلابات إنكم أتغادان أي كنت يصنع يا شعب الصومالي سبحان الله مرنا إن هذا اللوبنا مسؤولية ده حباسنتين مقدشو يا بنادر كلية واتكوينتي وحتين شعب كصوماليات يفتين كيرتنايا هدي أدربتان صوماليا مركاين يسكتوا بناتن كوا هنا يسكتوا بناتان هدي أدربتان صوماليا دولة نمينة أقولات إدين كوا هنا أقولاتان هدي أدربتان صوماليا يسكتوا قادة إدين كوا هنا يسكتوا قادتان هدي أدربتان صوماليا إني كرفت شرامل يسوعلس وين أتقبل لوضان إلى الأخبشان تذكر المقدشو والرباط ليسن إن شرفتوا ذي كرامل يسوعلي دوميه إنه وح جوجا وحكير لحظة المرة حبوا بانتين إن التيسان وقت وجوبا هي وكنت جابسان سوء عليه حقوق ذات ربطان إذن كان ومدة الصوماليين إذن كين في سنة يسار هدي ومدة الصوماليين إذن كأركت عبسي أتكسبتان دولة لماذا تفرار وحدينا ولول هرمر الآن marka waxa u soo baxaya dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sawir ah in dawladnimadu ay aad u fogtahay ana idin sheegay dawladnimadu way dhowdahay dawladnimada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed iftiinkeedii baa muuqda sidaas daraadeed waxaan maanta idinku weymid inaan idin mahad celiyo sida sharafta leh oo dalkan ugu soo dadaasheen إيجين أوسو هرتان
xoog iyo xoolo aad ugu soo bixiseen waxaan idin leeyahay laakiin waxaa laydiin soo diray telefoonka ugu dambeeyey waxaad joogtaan tallaabooyinka ugu dambeeyey ummadda soomaaliyeed dhibaatada uga baxleen u istaaga qarannimada soomaaliyeed garab istaaga guddoomiyihiinna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu